kutubkii ayuu qoray nebigiyaana macnaha na soo gaarsiiyey ilaahay marka qof hadduu dhinto qof kalaa kusoo daraya meesha. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقتي لسو دافهاي waxaa caddeynay beentiisii. xalaqadaani ilaahay hadduu idmo waxaa dadka u caddeynaynaa isburinta iyo iskhilaafinta hadalladiisii. kutub ilaahay aniga waxaan aaminsanahay 66daas kitaab oo ilaahay u soo waxyooday 40 nabi. okay, isug wax yar 40 nabi ilaahay u soo waxyooday. 40kaas nabina ilaahay uu waxyoonayay muddo 1500 sano. kutubtaas aan aaminsanahay kuma jiro wax oo hebel soo aruriyay, waxaas kuma jiro. waa kutub waxyi waa ilaahay macnaha nabi u soo waxyooday. kutubkii ayuu qoray nebigiyaana macnaha na soo gaarsiiyey. waa kutub waxyi waa ilaahay macnaha nabi u soo waxyooday. kutubkii ayuu qoray nebigiyaana macnaha na soo gaarsiiyey. ninkan wuxuu leeyahay kutubtan 66 wuxuu leeyahay waxaa qoreen 40 nebiyo. wuxuu rumaysan yahay kutubtan inay yihiin kutub oo waxy, sidaa hadda maqasheen. wuxuu leeyahay kutub waxy weeyaan. ilaahay wuxuu u soo waxyooday nebigana asagaa qoray, waa maqasheen. nebigiina asagaana soo gaarsiiyey, waa maqasheen. talow ninkan hadalkan miyuu ilaabi doonaa? ma laga yaabaa inuu khaalifo? ma laga yaabaa inuu ka hor imaado? waayo wuxuu leeyahay nebi ayaa loo soo waxyooday. waa ilaahay macnaha nebi u soo waxyooday. nebigiina asagaa qoray. kutubkii ayuu qoray nebigaasna asagaana soo gaarsiiyey. nebigiyaana macnaha na soo gaarsiiyey. macnaha waxa weeyaan oo wax maaragtay qori karto ama wax ku dari karto ama maaragtay wax ka dhimi karto ma jiraan. dee nebi keli weeyaan. yaa qoray 66daas yaa qoray? waxaa qoreen, wuxuu yidhi nebiyaa qoreen. sidaas buu hadalkiisii sidaas buu ahaa. haddaba la dhegaysano asagoo leeyahay dad taariikhdiisa qoro ayuu ku hogaamiyey, ama nebigii waqtigaas ilaahay uu u doortay oo kitaabka qoray asagoo nis hadduu rabo ha dhinto. ilaahay wuxuu u adeegsanaya dad kale. meeshaan waxa oo ku qoran kulli waa taariikhda ilaahay. taariikhda ilaahay marka qof hadduu dhinto qof kalaa kusoo daraya meesha. markaanti kutub waxyi waa ilaahay macnaha nebi u soo waxyooday. kutubkii ayuu qoray nebigiyaana macnaha na soo gaarsiiyey. kutubkii ayuu qoray nebigiyaana macnaha na soo gaarsiiyey. ilaahay marka qof hadduu dhinto qof kalaa kusoo daraya meesha. leeyahay nebi kelile ma ahee cid kala maratay qori karto oo cid kala wax ku dari karto. hadalkan wuxuu maratay khaalifaya oo burinaya hadalkiisii hore ayuu khaalifaya. kutub ilaahay aniga waxaan aaminsanahay 66daas kitaab oo ilaahay u soo waxyooday 40 nabi. okay, isug wax yar 40 nabi ilaahay u soo waxyooday. 40kaas nabina ilaahay uu waxyoonayay muddo 1500 sano. kutubtaas aan aaminsanahay kuma jiro wax oo hebel soo aruriyay, waxaas kuma jiro. waa kutub waxyi waa ilaahay macnaha nebi u soo waxyooday. kutubkii ayuu qoray nebigiyaana macnaha na soo gaarsiiyey. sida aad maqasheen, nuur wuxuu leeyahay baybalku waxaa qorta buu leeyahay 40 qoraa, waxayna ku qoreen buu leeyahay muddo dhan 1500 oo sano bay ku qoreen buu leeyahay. wuxuu kale uu leeyahay raggaas 40 ah ilaah baa u soo waxyoonayay waxyaabaha ay qoreen, asagoo ula jeedo waa waxyi waxay qoreen buu leeyahay. marka su-aasha isweydiinta mudan waxay tahay maxaa keenay raggaas qoraalada ay qoreen inay qaarkood iskhilaafaan? marka aad fiiriso Septuagintiga
iyo masoretiga farqi weyn baa u dhexeeya labadaas buug. Septuagintiga waa bibalkii cibraaniga ahaa oo Greek ama luqadda Greega loo turjumay. Masoretigana waa bibalkii cibraaniga ahaa oo koobi laga bixin waayo. tusaale ahaan marka aad fiirisid buuggii bilowgii ama Genesis cutubkiisa 5 faqradii 31 wuxuu ku leeyahay Lamek markuu dhimanayay wuxuu jiray 753 buu jiray buu ku leeyahay Septuagintiga. Masoretigan wuxuu ku leeyahay wuxuu jiray markuu Lamek dhimanayay 777 sano buu jiray. marka hadduu yahay hadalkaas waxay ilaah xaggiisa ka yimid maxaa keenay inuu iskhilaafo? maxaa keenay? sababtoo ah ma qaldama waa ilaah ma qaldama, laakiin bini aadam waxay qoraan way qaldamaan. midda kale أنا نبي أسوي وحيودي كتب كي أيو قرأ نبي أنا معناها نسوي جارسي bibalka marka aad akhrisid waxaad ku arkaysaa buugaag la leeyahay cidda qortay lama garanayo. marba cid baa dusha loo saarayaa. mar waxaa la leeyahay hebel baa qoray, mar waxaa la leeyahay hebel baa qoray, mar hebel baa qoray. taas oo caddaynaysa cidda qortay inaan la hubin. tusaale ahaan markaad fiirisid turjumaada la yiraahdo New Living Translation boggeeda 727 marka ay ka hadlayaan buugga cibraaniga ama Hebrew ay ka hadlayaan waxaad arkaysaa cidda qortay inaysan garanaynin. marba maaragt ay leeyihiin cid baa qortay, mar waxay leeyihiin Paul baa qoray, mar waxay leeyihiin Luke baa qoray, mar waxay leeyihiin waxaa qoray Apollos. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.